بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan rabaa inaan wax yar halkan ku qabto arrintii beryahan socotay ee ku saabsanayd qadiyadii cabdiraxmaan cabdishakuur uu ka jeediyey jarmalka kelmaddii uu ka jeediyey ay ku jirtay ee anigu aan ka mid ahaa culimadii ama aan ka mid ahaa dadkii radiyey ka fal celiyey aan ka mid ahaa waxaan dhegaystay maqdac ama kelib u dambeeyey ee uu soo diray arrintaana uu faahfaahin kaga bixiyey innaga marka ugu horeyso tartan cabdiraxmaan siyaasad ugulama jirno maalna iskuma haysano diinta islaamka oo ra-sumaalkeenna ah wax walbana nooga qiimo badan naf iyo maalba nooga qiimo badan daruuriyaadka shanta ee diintu ilaalisayna midda ugu horeysaba addiin ay tahay shareecadu ilaalisay waa addiin ahamiyadaas diinka maadaama uu leeyahay sidaana uu agteena uu ugu weyn yahay taas ayaa waxay keentay in aan ka fal celinno annagoo weliba ay naga tahay nusxi iyo inaan isaga u naseexeyno oo aan daacadnimo ula talinno sidii ayaana yeelnay waxaanan ku ugu yeernay inuu ilaahay arrintaa uga toobad keeno ilaahiisa qalad inay arrintaa ay tahayna uu caddeeyo xadiidkii ay ka timid hadalku uu ka yimidna inuu aqbalsan yahay uu sheego wuxuuna caddeeyey xadiidka matnigiisa iyo macnihiisa iyo tafsiirkiisaba inuu aqbalsan yahay oo uu aqbalay waana meeshii ay dooda ka jirtay iyo dhammaan hadal wixii gef ah ee ka dhacay fadhigaas ee uu halkaa ku qabtay inuu ilaahay uu cafis ku weydiisanayo isla markaana uu cafiyey ciddii isaga markaa ka hadashay dhinac si walbaba ha uga hadlaan innaga marka aadaan usoo dhaweyneynaa toobadaas iyo alla usoo noqoshadaas toobada ilaaha iskale anaga malihin laakiin waajib qof kasta lagu leeyahay waa ee gef galo inuu ka toobad keeno gefkaas dhammaanteenna waxaan u dardaarmaynaa inaga nafteenna qofkana sidiisa in shaydaanka lagu sii kaalmeeyo ma aha waayo xaaladahan oo kale shaydaanku wuxuu qofka geliyaa cizatu nafsi iyo qab hadal aad tiri waa qaldan yahay ha dhihin ku taagnow ayuu geliyaa haddii hadda isaga marka arrintaa uu ka baxay ee uu caddeeyey inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu cafis kaga dalbayo sidii fiicnayd ayuu yeelay ee culimmaduna ay kula talisay taasna waa soo dhaweyneynaa waana ugu yacni waxaan leenahay ilaahay ha kugu sugo towbada dhammaanteenna towbada waa isugu yeeraynaa annaga oo nafteenna iyo naf aada u gaabisa ah iyo dhammaan ummadda muslimiinta towbaan ugu yeeraynaa watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuun towbada falaax bay leedahay iyo liibaan midda kalena dhammaan dadka waxyaabaha noocan oo kale uu ka dhacay ee axaadiidta rasuulka sal ll ly slam ama aayaadka qur-aanka si qaldan uga yacni hadlo oo iyagu waxaan munaasab ahayn ku keeno in ay iyaguna ilaahay uga soo laabtaan arrintaa iyada ah sidaasaan dardaarmaynaa nafteenna iyo keyrkiin baan u dardaarmaynaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabi